munaasabadani sida heerka sare loo soo agaasimay ayaa waxa ay ahayd mid lagu daahfurayay barnaamijka waxbarashada dadban iyadoo ay ka soo qayb galeen wasiir dawlaha wasaaradda waxbarashada qaranka mas'uuliyiin ka socotay wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed ururada bulshada rayidka iyo macallimiin Soomaaliyeed waxaana isku soo dabariday barnaamijkani oo iska kaashaday wasaaradda waxbarashada qaranka iyo hay'adda UNESCO agaasimaha waaxda waxbarashada dadban Daawud Maxamed Makaraan oo ka hadlay ugu horeyntii munaasabadda ayaa waxa uu sheegay in ku dhawaad 400 oo arday ay ku bilaabayaan barnaamijkani kuwaasi oo loo diyaariyay laba goobood ay waxbarashadaasi ku bilaabi doonaan sidoo kale agaasimaha ayaa waxa uu sheegay in ardaydaasi qaarkood la bari doono xirfado gaara وكل أرضي جودهان سومالي مركي ليرادو لكن حمر أفر بقول أو أرضي أي كفاية صدوتو إن شاء الله أفر بقول ويل يقبلو إليهن لبس أنت أي كبران دونان حقيقة المهمة ده إلى ده هي هولها نوكله وح كجرا أرض ده مكان سوكر ميري لكن أرضي أدو يرير أو دادي سكول كوين لكن هذا وباهن هدي برنامج كان قاتل سكول ده إني لقب صدا أرضي سيدات سنة سجال سنة جيرو أما طبعا جو ولي كم تجين سجال طبعا مركو جري لا دور توني لا وكجارايو ولي جالس هو هيسا هدي لصو كابو إن all formal education كام وحبرجة توس لقب صدا مركا أرضي يرير يا كجوران هوان أيوه سي بديه حرفة أيا لباريتونا هذا نجيب يقول لبارين قيب منطقنا هذا نجيب يقول لبارين وحلا باريتونا إن شاء الله إن قيب wasiir dawlaha wasaaradda waxbarashada qaranka xukuumadda Cabdullaahi Bilan Nuur oo ka hadlay munaasabad waxa uu sheegay in ay aad ugu faraxsan yihiin in maanta ay goobjoog u ahaadaan furitaanka barnaamijka waxbarashada dadban wasiir dawlaha ayaa waxa uu sheegay inay sii xoojin doonaan barnaamijkani waxbarashada dadban bilaabayno tacliinta dadban oo inuu 400 oo ugu horeysay ay iska kaashanayaan wasaaradda waxbarashada ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed iyo xafiiska UNESCO maalin weyn weeye anaga wasaaradda waxbarashada ay meel fiican ayaan gaarsinay waxbarashadii tooska ahayd wax badan baanu ka qabanay haddana waxaan insha Allah xoojinaynaa waxbarashada dadban oo ugu horeyso dadka 400 ee hadda laga bilaabayo 200 oo kamid ah hortayda fadhido sida la socotaan dalkeena sidii loo sheegay waxa halka dhigay waa jahli iyo kala qaybsanaan waxaynu wax ku noqonaynaa waa cilmi iyo wadajir hadayna labada helin aqoon hadayna helin qofka maskaxdiisa hadaan aqoon ku jirin waa gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Batuulo Sheekh Axmed Gaballe oo iyaduna munaasabada ka hadashay ayaa waxa ay ka dhawaajisay in cadadkii ay ugu tala galeen waxbarashadan lacag la'aanta ah in ka badan ay soo xaadireen muddadii ay ku jireen qabanqaabada barnaamijkan muddadii hadda dhowrkan maalmood oo qabanqaabada ku jirnay oo waaxda ay madaxda ka tahay canab ee arrimaha bulshada ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed ee hawsha wada iyo macallimiintii la soo tababaray waxaan aragnay number ka badan numberkii loogu tala galay inay waxbarashada ka qayb galaan waxaan diyaarinay ilaa 8 fasal iyo xafiisyadii maamulka iyo macallimiintu ay hawsha ku wadi lahaayeen waxa kale oo hadda